وعنتا وديال سو دواada qodobkan maanta waxaan ku eegeynaa ururka al-shabaab oo mar kale soo rogaal celiyay sidoo kalena la wareegay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan macawsleeda sanmaal hore idin la wadaagay macawsleeda beesha xawaale sidoo kale ka dagaalanta bariga gobolka Hiiraan ayaa mudooyinkii u dambeeyay waxa ku yimaaday habacsanaan iyo sidoo kale qalbi jab iyo niyad jab ay ka qabaan la dagaalanka ururka al-shabaab iyadoo aysan garab ka helin dawladda federaalka Soomaaliya sidii ay ugu baahnaayeen madaxweynaha Soomaaliya oo dhawaan tagay ayaa macawsleeda beeshaasi u ballan qaaday dhiirigelin iyo sidoo kale agabka wax walba iyo saadka ciidanka ay kula dagaalama lahaayeen ururka al-shabaab in ay la garab joogto dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kalena ay caawinaad ka helayaan duqeymo ay geysanayaan beesha caalamka ama saaxiibada dawladda federaalka Soomaaliya si kastaba haatee ballanqaadkaasi madaxweynaha maxaa ka hirgalay sidoo kalena macawsleeda beeshaasi ee markii hore iyada iskad u xoreysay bariga gobolka Hiiraan haatan maxaa ku dhacay oo mar kale ay ciidamada ururka al-shabaab ay ula wareegayaan deegaano ay markii hore dhowr 2 sano iyo ka badan hay iyaga gacantooda ku xoreeyeen xogtaas oo dhameystiran iyo warar kale oo xasaasi ah ayaan qodobkeenan ku lafaguri doonaa waxaan rajaynayaa inaad ila joogtid sidoo kalena muuqaalka like share gare sidoo kale hadduu channelka subscribe ku ahayn waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe ii saartid kana mid noqotid saaxiibadan halkan ku warqaano muuqaalka asxaabtaada u share gare mar kale aad iyo aad ayaad u mahadsantahay waa hagaag daawadayaal deegaanka Aboorey oo dhowr 20 kilomitir u jira magaalada Buluburde ee gobolka Hiiraan haye saake waxa ay si nabad ah ula wareegeen ururka al-shabaab iyadoo aan wax dagaal ah dhicin sidoo kalena wax dhiigan ku daadanin sidoo kalena macawsleeda ay iskood ugu baxeen macawsleeda bariga ka dagaalanta Hiiraan ee xawaadlaha ayaa mudooyinkii ugu dambeysay waxa ay faaruujinayeen xerooyin iyo sidoo kale deegaano ay ka tirsanaayeen ee ururka al-shabaab iyaga iskood ay ula wareegeen haatan ururka al-shabaab ayaa dib ugu soo laabtay oo ciidamadaasi macawsleeda goobaha ay ka baxeen si nabad ah ula wareegay gobolka Hiiraan ayaa waxa dagaal ba'an 2023 ay la galeen qaas ahaan beesha xawaale ururka al-shabaab inay ka xoreysa guud ahaanba bariga gobolka Hiiraan oo iyada degto iyadoo ku guuleysatay inta badan gobolkaasi inay ka xoreyso dhinaca wabiga Shabeelle bari ka xigo guud ahaan al-shabaab nafarkiisa lagu arkeen hase ahaatee haatan ayaa waxa u muuqata in guushaasi ay gaareen beeshaasi sidoo kalena macawsleeda beesha xawaale ka saareysay bariga gobolkaasi Hiiraan al-shabaab ay haatan u muuqdaan inay habacsanaan iyo sidoo kale iyaga iskood ay ugu soo baxeen waxay dadka inta badan habacsanaantaasi iyo sidoo kale ururka al-shabaab inay dib ugu soo baxaan iyo sidoo kale inay dib ugu soo baxaan macawsleedaasi keentay hogaanka gobolka Hiiraan oo isqaqabsi badan u hareeyay iyadoo dhinaca ay ka haysato Hirshabeelle oo inta badan ku guuleysan weysay in ay dagaal xoogan la gasho sidoo kalena ay ka xoreyso deegaano iyadoo Jowhar inta badan dhowr 20 kilomitir deegaano u jiro ay ururka al-shabaab ku sugan yihiin hase ahaatee Hiiraan oo ku guuleystay inuu mar kale isku xoreeyo ururka al-shabaab ayaa haatan waxa ay u muuqataa in ay saameysay Hirshabeelle habacsanaanta iyo sidoo kale daacad la'aanta ururka al-shabaab ay kula dagaalamayso ay ka jirto deegaanadaasi Shabeellada dhexe deegaanka Aboorey ayaa kamid ah deegaanada ay saake mar kale ururka al-shabaab si nabad ah kula wareegeen Aboorey waxa uu dhowr 20 kilomitir u jira idii sheegayba magaalada Buluburde waxa uu dhaxeeyaa Jaralakhsi iyo sidoo kale Buluburde hase ahaatee waxay ururka al-shabaab si nabad ah kula wareegeen deegaankaasi iyagoo ilaa ay haatanba ku sugan bariga Hiiraan dagaalka ka socda ayaa waxa sanadii 2023 hogaaminayay Cali Jeyte Cuthmaan oo ahaa hogaamiyihii markii hore bilaabay in si iskood ah oo qabiileysan oo aan loo kala harin qof walba qabiilkiisa inuu isaga dhiciyo ururka al-shabaab sidoo kale deegaanadooda ay ka xoreystaan hase ahaatee isku dhac ka yimaaday Cali Guudlaabe iyo sidoo kale Cali Jeyte Cuthmaan ayaa markii dambe waxa uu sababay Cali Guudlaabe inuu xilka ka qaado Cali Jeyte taas oo ku wareejiyay Muuse Salaad Wehliye oo ah gudoomiyaha gobolka Hiiraan haatan taas oo keentay in mar kale macawsleeda beeshaasi ay tafaraaro ku timaado sidoo kale la dagaalanka ururka al-shabaab la kala jiheeyo sidoo kalena al-shabaab ay ka helaan meeshaasi fursad iyagoo mar kale ku soo noqday gobolka Hiiraan in ay la wareegaan deegaano ka tirsan oo 23kii laga xoreeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan tagay gobolka Hiiraan gaaqaasatan degmada Moqokori ballanqaadkii uu sameeyay mihirgeli waa maya oo madaxweynaha muusan hirgelin ballanqaadkaasi uu markii hore u sameeyay beesha xawaadle waxaana sabab u ah deegaanada ay mar kale dib ugu soo noqonayaan ciidamada macawsleeda oo ay dagaal ba'an ka mareen in ay mar kale dib uga qabsadaan ururka al-shabaab
taasoo adkaan doonta inay mar kale la faro wareejiyo daawaday haddii aad inta ina joogto waxaan ka codsanaynaa janaalka subscribe saartid muuqaalka like saar share gare gaarsii saaxiibadaada halkan waxaan kugu soo gudbi doonaa xogo muhiim ah war xasaasi ah aad ka heli doontid fadlan waxaa kamid noqo saaxiibadan halkan ku raqaadno mahadsanid